ورئيس سومالان كورهاد لا يوحيري حكومة مصبيحية وسيرك كاهين تجرتي ولي جد ما يحرون قفر أي جيس فيسبوك نكون محرين تاسوا بين عد مرق فرق يجينا وكان يكفر ديها ما يتكلم سيسة وجودن بيه محمد دمبيل بقى وجودن بيه قفر حرارك تدي سو فيسبوك ولا قحر ستيدمن محمد بجاينا سداد بلاد باين تحكم كل عاي وحرنا أركتدي سو ولا فيسبوك ستيدمن يرو أفر حرف أنا صدق بلاد بانو حرنا عالضان waa kama dheere ugu jira afayeenkii wasaaradda arrimaha gudaha maxamed kahan afayeenka waa Jamaal saddex bilood buu xabsiga dhexe ku jiray isagoo ku xirnaa Facebook statement yar ku qoray horta taa waxaan leenahay wasiirku uu jeclaan lahaa malaha inuu saa ugu faano hadii jiri leeyay laakiin ma jirto oo waa beenaale annagana marag ku geedii ah xisbiga kulmiyada Soomaaliland isaga ka dhigay xiriirigtii xorriyadda isaga ka dhigay goob xabsiya oo aragtida aan lagu tixgelin oo dastuurka lagu tunto oo aan fikirka lagu cabirin oo lagu xiro dadka Facebook-googa xukuumaduna iyadaaba siyaasad ka dhigato samaysatay unug dhan oo ka shaqeeya basaasida Facebook-yada wariyaal baa shaqo laga geeriyay muwaadiniin kale dawladda u shaqeeya lagu eeriyay ummad kala Facebook awgii xuquuqdooda ku waayay waliba budgetka ku baxaana wuxuu wax ka tari lahaa shaqo la'aanta iyo dhalinyarada waxaanu abuuri lahaa dugsiyo waxbarasho inta lagu basaasayo muwaadiniinta Facebook-yadooda wasiirku de malaha wali mentality-giisa aragtidiisu waxay joogtaa 60kii xilligii shuuciyadda iyo waxbarashadoodii ummaddu ka sheekeynayay shalay ee uu lahaa militarigu oo dadkii horumariyay dunida diigool iyo uu ka sheekeynayay dagaalkii labaad adduunka madaxweynayaashii waqtigaa riday buu ku baanayay malaha isaga waxay ugu joogtaa 1945 isaga ugu joogtaa wali dagaalkii labaad adduunku jooga nolosha casriga iyo dawladnimada casriga waxay ku hana qaaday dimuqraadiyadda ixtiraamka aragtida xorta isdhageysiga iyo nidaamka wanaagsan xisbiga kulmiye iyo hoggaankiisuna dalka meel xun buu ku wada meesha iyagu marigeeda ka furayaan ayaa ku wada waxaan u sheegayaa madaxweynaha iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha dunidu waxay nagu calaamadisay dal yar oo dadkiisa ku xirxira cabirka fikirkooda iyo aragtidooda wasiirkana waxaan leeyahay runta barashadeeda belaka hor joogta wallaahi waa beenaale wasiirku annaga marag fur u ahoo jeelasha waxa dad ku jira aragtidooda u xiran yihiin haddii aan la helin xal oo aan la helin ummaddu inay ka baraarugtana maalinba qof baa la jiidan doona shalay u dambeysay wariyaal baa lagu garaacay suuq dhexdeeda la eriyana dorrad baa u dambeysay ummad baa lagu xirxiraya aragtidooda xarigba ma inaga labadaas sare ka baxnay shaqada kaliya dhabtay taali dalkuba xarig xabsi xorriyad ku tumasho xuquuq duudsi iyo dad waxay ahayd xanibaad intaasoo kaliya xukuumadda inoo haysa waxaan ummadda u sheegaynaa wasiirku shalay toole maalin cad buu riyooday waliba isagoo soo jeedo riyooday laakiin waxaanu leenahay de wasiirka iyo madaxweynihiisa iyo xukuumadduba xariga iyo xabsiga iyaga ku caanamaale waa halkii ka cabta